Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta booqday magaalada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo halkaasi uu kala qayb galay ciidanka xoogga dalka xuska sanad guurida 16aad ee aasaaska militariga Soomaaliya ku beegan 12 Abriil. Ra'iisul Wasaaraha ayaa hambalyo bogaadin u diray una jeediyay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan halkaasi oo ay ugu horeeyaan saraakiil xigeenada alifleyda dableyda xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu hambalyeeyay dagaal Al-Shabaab ay dhawaan kula galeen ciidamada xoogga dalka degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay guul ka gaartay. Maanta farxad ayay ii tahay inaan idinku soo booqdo jiida dagaalka ee Awdheegle oo aan idinkala soo qayb galo idinkalana qayb qaato farxaddii iyo guushii aad ka gaarteen cadawga ummadda Soomaaliyeed ee jid iyo jihadiidka ah. xaqiiqdii waajib wadaninimo Soomaalinimo islaamnimo ayaad gudateen oo dalkiina ayaad difaacdeen. Ilaahayna garabkoodu wuu ka baxay kuwa xaq u socon. waxaan idin leeyahay guul hambalyada maanta oo ah 12 Abriil oo laga joogo 16 guuradii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. hambalyo idinka iyo dhammaan reerihiina qoyskiina eheladiina hambalyo ayaa idin leeyahay. xaqiiqdii waxaan soo watay maanta wasiiradda caafimaadka. sababtan u soo watayna wax kale ma aha aniga og baahiyadiina kala duwan oo ay ugu horeyso midda caafimaad ayaan rabay inay indhaheeda ku aragto una soo gurbato sida ugu dhaqsiyaha badan. baahiyaha kale oo jiro oo ay ka mid tahay dib u habeynta ama reformka iyo mushaaraadkana ciidanka ku cusub xoogga ayaan saari doonaa insha Allah markaan ku noqdo magaalada Muqdisho. waxaad ogaataan in shacabka Soomaaliyeed uu xooggiina iyo awoodiina uu ku jiifo la'aantiina uu cadawga uu qabsan lahaa shacabka Soomaaliyeed. saa darteed waxaan idin leeyahay hambalyo inta guusha keentay inta ku dhaawacantay Ilaahay ha caafiyo inta ku dhimatayna waa mujaahidiin Ilaahay jannatul firdaws Allah geeyo. Aadan Ibrahim Farax Nation Media Muqdisho.